markii ugu horreysay taariikhda ee la arko cudurka Ebola waxay ahayd sanadkii 1976 markaas oo uu si wada jir ah uga dilaacay magaalada Sara oo ku taala dalka Koonfurta Suudaan iyo Yambuku oo ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. cudurkan ah nooca la kala qaado ayaa magaciisa Ebola loogu magac daray webi ku yaal Kongo oo Ebola la yiraahdo halkaasoo cudurkan xudun u noqotay. Ebola ayaa fiditaankiisii ugu weynaa tan iyo markii jiritaankiisa la xaqiijiyay sanadihii 2014 ilaa iyo 2016 markaas oo uu ka bilaabmay dalka Guinea una gudbay dalalka Sierra Leone iyo Liberia oo xuduudo dhulka ah la leh Guinea. dunida ayaa si weyn uga warwartay cudurkan sanadahaas. Ebola oo asalkiisa hore laga qaaday xayawaanada duurjoogta ah ayay dadku si fudud iskugu gudbin karaan isagoo aan haba yaraatee wax daawo ah lahayn galaaftayna dad badan oo waasiibay. calaamadaha cudurkan ayaa ah qandho daran, madax xanuun, cunaqalal, matag, fuuqbax iyo dhiig ka yimaada qofka meel kasta oo daloosha. in ka badan 11,000 oo qof oo ku noolaa galbeedka Afrika ayuu Ebola galaaftay nafahoodii halkaas oo hay'adda caafimaadka dunida u qaabilsani ay ku soo rogtay xaalad degdeg ah. sanadkan 2019 iyo kii ka horreeyay ee 2018 ayaa si rasmi ah Ebola looga xaqiijiyay dalka bartamaha Afrika ku yaal ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo halkaas oo xaaladda nabadgelyo darrana ay sii murgisay karantiimaynta cudurkan. Ebolaha cusub ee Kongo ka dilaacay ayaa galaaftay nafaha in ka badan 1500 oo qof. cudurka ayaa u gudbay dalka deriska ah ee Uganda oo iyadu muddo 8 bilood ah diyaargarow xoogan ugu jirtay ka hortagiisa. Ebola ayaa dad ku dhex dilay Uganda. dawladda dalkaas ayaa heegan sare oo caafimaad gelisay deegaanada laga soo sheegay. Uganda ayay ciidamo tiro badani ka joogaan Soomaaliya halka boqolaal arday Soomaaliyeed iyo dad kale oo dhoofdoon ahina ay joogaan Uganda. Uganda ayaa ah dalalka ay Soomaalidu aad ugu safarto. dalka deriska Soomaaliya la ah Kenya ayaa diyaargarow culus ugu jira ka hortagidda cudurkan inkastoo ay beenisay inuu dalkeeda cudurkani ka dilaacay Kenya. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa dadweynaha ugu baaqday inay isdejiyaan. cudurka Ebola ayay halis ugu jiraan shaqaalaha caafimaadka, dadka meydka aasa ama taabta iyo dadka bukaanada daryeela. hay'adda caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta ayaa sheegay inuu cudurkani ku dhici karo qof walba diinta uu doono ha haystee lagagana hortagi karo in aad la iskaga karantiilo taabashada dheecanada qofka buka iyada oo lagu dadaalaya nadaafadda guud lana booqanayo xarumaha caafimaadka. adeegga caafimaadka ee dhulka Soomaalida oo markiisii hore ka mid ahaa kuwa ugu liita dunida oo dhan ayay dadka la socdaan.